أنا كايدي كل عرسك أمشو halkani waa duuxa weyn ee deegaanka Dhaboolaq oo galbeedka kaga beegan caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa waa dhul caan ku ah dhinaca beeraha iyo xoolaha labadaba waxa kale oo deegaankan uu caan ku yahay biyo baaxad leh oo laga helo duuxa weyn ee Dhaboolaq taasi oo sababtay in xoolo dhaqatada dalku ay uga soo hayaamaan deegaano aad uga durugsan siiba xilliyada abaaraha dad muxsiniina ayaa waxa ay deegaanada Dhaboolaq ka hirgeliyeen ceelal tiro badan oo biyo laga soo saaray imikana laga faa'iideysto haddaba shan ceel biyood oo cusub ayaa waxa laga dhagax dhigay deegaankan Dhaboolaq Sheekh Aadan Xaaji Maxamuud Aadan Siro oo kamid ah culimada waaweyn ee Soomaaliland oo isagu fulinta hawshan gacanta ku hayay ayaa faahfaahin ka bixinaya ceelashan iyo cidda ku soo yaabtay Bismillahir Rahmanir Rahim الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه waxaynu joognaa tuuladii Dhaboolaq oo in badan oo horena ceelal badan laga qoday oo waqfiya oo Ilaahay dartii loo qoday oo loogu tala galay dadkeena xoolaha iyo dadkeena reer miyiga inay ka cabaan in badan baa la sheego odayaashuna ay sheegeen in meeshan ay tahay meel Ilaahay biyo dhigay oo ceel runtii meel fog looga yimaado uu yahay maanta oo bishu ay tahay 19 bishii Oktoobar 2021 waxaynu ka dhagax dhigi doonaa 5 ceel oo runtii intaba loo waqfiyay dadka muslimiinta iyo xoolahooda ceelka ugu horeeya waxa loo waqfiyay Yuusuf Axmed Tiire waxaana uu waqfiyay xaaskiisa iyo ehelkiisa uu waqfiyay waxaanu leenahay dadka muslimiinta ee runtii waqfiyay ceelkaasi Ilaahay dambigooda ha dhaafo dariiqa jannada Ilaahay ha u fudaydiyo cidda ay u waqfiyeenna Ilaahay waqfiga ha gaarsiiyo maalinta runtii la qatan yahay la qaawan yahay Ilaahay ha ku anfaco ceelka labaad waxa loo waqfiyay Cabdi Xirsi Maxamed iyo Maryan Jaamac Cabdi labada waalid baa magaratay loo waqfiyay waxaana uu waqfiyay caruurtooda waqfiga Ilaahay ka aqbalo waalidka loo waqfiyay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha ku anfaco caruurtaasi khayrka badan leh ee iyaguna gartay waalidkooda inay u waqfiyaan Ilaahay dartii maadaam biyuhu ay yihiin waqfiga ugu khayrka badan leh ee wax la waqfiyo iyagana Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha ku anfaco maalkooda iyo cimrigooda iyo hantidooda Ilaahay ha ku anfaco iyo wax walo khayr loo ay doonayaan waxa kaloo jira 3 ceel oo ay soo bixiyeen فاطمة إسماعيل أم بدر 3 آبار قد أرسلت به يعني المرأة فاطمة إسماعيل أم بدر بئرين جعلته وقفا لبناتها بنتين لها والآخر الحاج علي أبو أحمد هذه الآبار الثلاثة جعلوا وقفا لله سبحانه وتعالى لكي يشرب به الناس والمواشي جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك الله فيكم ونقول لكم الله يقبل بكم هذا الوقف الذين وقفتم لله سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه geesta kalena odayaasha deegaanka ayaa ka mahad celiyay deeqdan samafalka ah ee loo fuliyay dooxan dib badan ayaa laga mudan jiray marka la qodayo ceelasha waxa jirtay ceelasha in 8 habeen iyo 5 habeen loo dhaxo oo gudahooda qarmacada lagu karsado oo qodaalkooda hawl iyo dib aad u badan ay ka soo mari jirtay maanta alxamdulillah waa Ilaahay mahadi ceelasha sabada ah
ee dadka waqfiga soo bixiyey iyo sheekh aadan jasaaka allaahi khayr muraadkooda macsiyo lahayn ilaahay ha gaadhsiiyo maytaadda ay u niyoodeenna ilaahay ha gaadhsiiyo qabriga allah ugu nuuro qabriga allah ugu waasiciyo dhammaanteenna ilaahay ha inooga wada daba naxariisto ilaahay naxariistana ha ka waraabiyo waqfigii aan lumin ilaahay ha ka yeelo annaguna waanu ku mahadinaynaa waanu ku raynay waanu kaga raysanay dhibtii alxamdulilaahi rabbialcaalamiin waa ceel ballaadhan waa ceel oogo waa ceel magaalo dad iyo dunyaba waa laga cabbay waana laga dhergay alxamdulilaahi rabbialcaalamiin qofka biniaadanka u mahadnaqi male ilaahayna uma mahadnaqo mar labaad iyo mar saddexaadba waanu mahadnaqaynaa dadkaas soo bixiyey ilaahay ha ka sababiyo ilaahay gaadhsiiyo sheekh aadanna waanu u ducaynaynaaye jasaaka allah ilaahay gaadhsiiyo isagana xasanaadka xidhiidhka uu sameeyey ilaahay isagana ha ka sababiyo ka jaasiyo ilaahay baa horta mahadle sheekh aadan xaaji cabdi maxamuud ayaa horta waxa weeyaan ayaa dadkaa isku xidhay ilaahay baa mahadda leh sheekh aadanna mahadduu leeyey dadkaas soo bixiyey ee muxsiniinka ah ee inoo keenay dadkaasina khayr bay keeneen khayrkaasi ay keeneenna waa taa dee loo qodayo ee wafka looga dhigayo dad iyo adduunyaba laga cabayo shimbiraha ka cabaya ilaa halkaa nimcuu dhigay ilaa halkaa ilaa xaraf baa laga soo bilaabay ilaa xaraf ilaa xaraf hagal xareed ilaa cusbi aalbuu maraya imika kuwa dadkaas soo maanta rashanta ceel keenay waynu u ducaynaynaa khayr baynu ugu ducaynaynaa waxa ay baxsadeen ilaahay muraadkiisa muraadkiisa ilaaha siiyo waalidiinta ilaahay ha sii gaadhsiiyo kii isagu laftiisa u bixiyey ilaahay ha sii gaadhsiiyo inay ilaahay khayrka hayna siiyo marka horeysa ilaahay baa mahadle mar labaad waxa mahadle martida inoo timidee sheekhu la socdo ceelashaa waqfigaa inoo keenay aad iyo aad bay u mahadsan yihin waxaan halkan ka sheegayaa maadaama guddoomiyihii tuulahan ahay dhaboolaaq ceelashaasi waa waqfi cid alla cid kale leh ma jirto cid sheegan karta ma jirto ummaddaa ilaahay baa loo qodo ka dhexeeya meel kasta waa looga soo aroori karaa taasi iyadu waa ogeysiis midda kale waxaan u ducaynaynaa dadka muxsiniinta ee ku soo waqfiga keenay ilaahay muraadkooda ilaahay ha u aqbalo ilaahay dadkii ay ugu talagaleen ha ugu naxariisto sheekhana ilaahay isagana jisaa'igiisaas iyo xasanaadka u ka shaqaynayo